نورك صوميليا ووطني وطني أقنصي ووطني نورك صوميليا ووطني وطني أقنصي ووطني iyadoo ay maanta gashay maalinkii saddexaad ee ololaha doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa maanta ololahaasi u lahaa xisbiga isbeddeldoonka ee wadani waxayna maanta ku soo bandhigeen cuudooda taageero ee u hayaan xisbiga isbeddeldoonka ee wadani yar iyo weyn shacabka gobolka Sool ma aysan kala hadhin muujinta taageerahooda xisbiga wadani gaadiid aan tiro lahayn kumanaan dadweynaha oo aan kala soconayn ayaa saaka iskugu soo baxay fagaaraha khayriyada ee magaalada Laascaanood oo ku gaashaamnaa calanka astaanta xisbiga isbeddeldoonka ee wadani iyo sidoo kale sawirada xogayaha maaliyadda xisbiga wadani intaasi kadib waxay shacabka gobolka Sool ay ku soo dhaxmareen wadooyinka waaweyn ee magaalada Laascaanood waxaana shacabka gobolka Sool ay ku soo dhaxmareen wadooyinka waaweyn ee magaalada Laascaanood waxaana socdaalkaasi ku weelinayay saraakiisha ugu sarreeyay xisbiga isbeddeldoonka ee wadani ee ku sugan magaalada Laascaanood xogayaha maaliyadda xisbiga wadani xogayaha caafimaadka xogayaha arrimaha dibadda iyo sidoo kale barasaabka hore gobolka Maroodijeex Xaaji Jeen Yare iyo saraakiil tiro badan oo gobolka Sool munaasabad ballaaran ayaa mas'uuliyiinta xisbiga wadani halkaasi hadal ka soo jeediyeen iyagoo dhamaantood ay u mahadnaqeen taageerayaasha xisbiga wadani ee iskugu soo baxay fagaaraha khayriyada ee magaalada Laascaanood taageerada iyo kaabeynka xisbiga wadani shaqaalaha ayaa lagu wareejinayay shay halkan fagaaraha lagu kala baxay ishaan walba u halkan waa garanaysan shacabka Soomaaliland abaanada reer Soomaaliland ma waxaan ugu baaray qoyska wixii maraysa asayra tan wadana wadani وسيارة هذه أبنى أنت أرضى نفرح سنة حتى تبقى من حدود من التصير إلى وطني تهين غير ناس عرضوا هذه أبنى ما سنتين هذه أبنى وما زي الشعب وإلى غير ناس عرض taageerada quruxda badan loo muujiyay maryahooda iyo waxooda oranjiyiin aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa guusha waxaa leh wadani waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in shacabka reer Sool aafadii kulmiye ay ka soo jeesteen oo diyaar garoobeen isbedel la mahadeen alla ka baryeynaa inuu talada dalka lagu guuleeyo alla ka baryeynaa isbedel khayr qabay alla weydiisanaynaa sida aan u soo baxnay weeyna kan tamayno وبيشة فوقانو وإيدي وغنى السالو سان هلا وشيغي كيرو علي هول حتى الوطني أيام ما أنت أكو كسيطة انقلوا بسول هذا عمادا إذا كانوا ترجعان إذا هذا عمادا إذا كانوا ترجعان إذا كانوا بيا يا سابق لو ذكا هلابي لو ذكا لحليحب ووطني waxaan soo baxay waxa weeye in dawladda min waliba kuwa ku soo qaadanaya ee wadankan harqisay reer Sool saddex bushaaraan oo idin wadnaa bushaarada koowaad maxay tahay shalay dadkii halkan isugu soo baxay waxay cadeeyeen inay isu soo baxeen oo lacag la siiyay laakiin ay u codaynayaan isbedelka wadani taaniyada gashada taasi waa bushaarada koowaad ee idin wadno Allahu akbar guul wadani shacbiga qaaliga ah ee reer Sool waa salaamaya waxa weeyaan maanta maalintii ugu horeysay ee ololaha xisbiga wadani yeeshay madaxda xisbiga wadani markii ay kala baxaysay aniga caashaqay Sool iyo Laascaanood magaala madaxdiisa oo yidhi ma halkaasaan tegayaa waa kalgacayl aan u qabo waa garasho aan qiinay dad qaali ah haddii mujaahidiin laydin sheegtay dadkii daraawiishta ayaan anugu doortay inaan la ciido maanta oo la xafladeeyo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha maaliyadda xisbiga isbeddeldoonka ee wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed isagoo u mahadnaqay kumanaanka shacabka ah isugu soo baxay fagaaraha khayriyada magaalada Laascaanood waan aaminsanahay in aad gabateen oo aad galwaqsateen
dhibaatooyinka xisbiga talada hayaa intii uu dalka hayay uu u geystay gobolkan iyo deegaamadiisa kala duwan hadday buuhoodna tahay hadday sool tahay iyo haddii ay sanaag tahayba dhibaatooyinkaa u geystay waxaa ka mid ahaa colaad iyo duulaan la geliyey dadka deegaankan waxaa ka mid ahayd horumar la'aan iyo inaan wax laga qabtay oo ay ka heleen kasoostii dalka ay wax ku lahaayeen aanay jirin doolar oo kaarka laga ursado gobolkaasi gobolka way ka quusteen kaararkiina yay ursanin kaararkiina ilaashada waxaad arkayseen shalayta waxa maanta halkan ka muuqda meelaynu kala joogsanaynu laanahay iyo wixii shalay halkan ka jiray waad ogtihiin aad iyo libteeda idinkaa iskale ammaanteeda idinkaa iskale maalinta doorashada iyo codkeenna iyo waddani soo ballanku sidaa maaha waxaynu ballankeenu noqonayaa halhayskeenuna uu noqonayaa waddani rajada shacabka ومحمود هذا نسكر محمد قولي سومالي نيوز تي في لا سعنود هذا نداود الواحد يكون رجني ورياه يجا سومالي نيوز إديان كقول سكريا محمد عيسى